السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإن سلامايا maantayno in videogan waxaani walaasha u duubayna ma ahan yani wax oo aan dheeldheel u duubayno arrin jirkeena dhan dakhnisay oo aan arkayna maalmahan dhan website-yada aan ku arkayna ama Facebook ha ahaato ama YouTube ha ahaato ama website-yada Soomaalida ha ahaato oo jirkeena saad u dakhnisay aan rajaynayno inay gabdho badan oo Soomaali ah ama wiilal badan oo Soomaali ah ama hooyooyin iyo aabooyin ay maskaxdooda dhibaato weyn gaarsiisay ayaan rabnaa maanta meeshaan inaan uga hadalno arrintii ugu foolxumeed aragna waxay ahayd midii aan xalayto aan indhaheena ku aragnay subhanallah ilaahay miyaysa dadku ka cabsanaynin miyaysa aakhira ka dambaynin miyaysa ilaahay xisaabinaynin maxaa sababa inay gabar walaashooda oo Soomaali ah ayadoo qaawan masawiraanteed inay Facebook soo saaraan maxaa sababa inay walaalo kale sii fidiyaan maxaa sababa gabar aan is ogeyn oo jirkeeda ilaahay dartiis u asturtay oo jirkeeda ayadoo awooda inay qaawiso ayadoo awooda inay madaxeeda qaawiso jimaheeda qaawiso jirkeeda meel walba inay ka qaawiso ayadoo ilaahay dartiis cabsi ay qabto sharafteeda ay ku dhowranayso diinteeda ay ku dhowranayso ayadoo asturtay jirkeeda maxaa sababa in kaamirooyinka loo geliyo fiidiyoyaasha loo geliyo meelaha ay ku qaweysanayaan ayagoo is ogeyn walaalayaal waxaan aan ka hadlaayo ay dad badan inay arkeen waa u maleynaya arrintaana waxa waaye arrin foolxun oo saayid u foolxun oo community-ga Soomaalida ceeb weyn ay ugu jirto oo walaasheenaas muslimada ay dhibaatadaas ku dhacday laga yaabo inay maskaxdeeda dhibaato weyn u gaarsiiso hooyadeed ka waran qofka soo saaray arrintaas oo Facebook ka soo duubay walaasheena oo ceebteed dhibaato walba labadiina in ka dhex dhacday dhibaato walba labadiin uma qalanta gabadhaas walaasha ah ayadoo jirkeeda qaawan tahay inaa meelaha publicada soo saartid masawirkan aan ka hadlayno waxa waaye walaal meel qaxooti miya ama Soomaaliya joogto oo ayadoo jiingad miya ama meelaha musqulaha banaanka ku qaweysanaysa meel oo luuqluuqa laga duubay video ayadoo qaweysanaysa subhanallah walaalka duubo hadaad wiil tahay hadaa gabar tahay ma jeclaan lahayd adigoo qaawan in meel public lagu soo saaro dhibaato walba aad qof ku gashay in dhibaatadaas meel public lagu soo saaro ma jeclaan lahayd ilaahay ma ka cabsanaysin miya hatta ilaahay hadaad ka cabsanayn hatta hadaad ilaahay aqoonin had ma kugu jiro miya diirna haya aqal maliin miya aad ku kala kastiin xumaanta iyo wanaaga soo kuma roonaan lahayn qofkaas inaan nafta ka goysin inta asiga jirkiisu aqaawan meel public soo gaa waxyaabo badan oo la iskaga aarsadaa jira hatta hadaad cafis aqoonin qalbiga wax lagu cafiyo hatta hadaad ka saynin ma si kale uga aarsatid marka walaashaada oo qaawan ma ogtahay markaad gabadha jirkeeda aad fadeexaynaysid inaan jirkeyga fadeexaynaysid inaan walaashi jirkeeda fadeexaynaysid inaan gabar walba oo muslimada oo jirkeeda ilaahay dartiis u asturtay inaan fadeexaynaysid soo ma aragtid aqli miyaada lahayn maskax lagu fikra miyaada lahayn ma ilmaa tahay ma xayawaan baa tahay ma xayawaanka baa cuntada la cuntaa see wax ka yihiin walaalkayo si aan wax ku fahanti ma aqoon weyse wallahi hadalkayga xanaaqa ay ka dareemaysiin gubnaha jirkayga guba iguma dhicin arrintaas ani iguma dhicin walaashana kuma dhicin qof aan aqaano bini'aadana kuma dhicin laakiin walaasha muslimada markay ku dhacday walaasha Soomaaliyada markay ku dhacday walaasha aan isku luuqadnahana markay ku dhacday isku diinnahana ay ku dhacday isku wadan aanahana ay ku dhacday maxay ka duwan tahay ani inay igu dhacday waxba ma ka duwana waayaal maanta arrintan ha joojino maalin walba waxa arkaa gabar qaawan oo jirkeeda dhan qaawiya oo Facebook la soo saaray oo Soomaali ah yaa soo saaray waa walaalaheeda kale waa wiil Soomaali ah ama waa gabar Soomaali waxa soo saarayso dadkan xumaanta faafinaya hadda anagu si wada garab ah iskula jirno aan joojino wallahi waan joojin karaynaa ee walaalayaal ha isku laabano bismillaahir rahmaanir rahiim dadka leeg ka bixinaya oo si gudbinaya waxa dhiilahay ay kan inay iska dhaafaan waxaas ma jeclid maanta gabar walaasha inay ceebowdo ceebteeda banaanka ay ku soo fadeexayso mise adiga inay ceebowdid ma jeclid marka waxaan dhiilahay walaalayaal waxa seeta naga daaya hadaa dad muslimiin oo jirkooda naxay hadaa tihiin gabadhaasna waa gabar muslimeed oo hadan oo Soomaaliyeed u dhalatay waxa seeta marka waxa dhiilahay ka daaya gabdhaha Soomaaliyeed oo muslimiinta walaalihiin ameedaha ku fadeexaysanaysiin hadaa tihiin dad muslimiin oo ka naxayaan waxa kaloo meeshan ku sii daraynaa in walaalaha dhibaatooyinkaas ku dhacday gabdho badan oo Soomaali oo dhibaatadaas ku dhacday jirto fiidiyoyaal aysan ogeyn laga duubay baa jirto gabadha walaasha qalad wayba gashay laga yaabaa wax ilaahay uu xaraan ka yahay inay sameysay waxa dhaqan ahaan laga anagu aan u lahayn inay sameysay laakiin qofkan waa bini'aadan qaladna uu ku dhacaa ilaahay adoomadiisana waxa lagu kasaaya inuu qalad ka dhaco inuuna ka soo laabto walaalaheena Soomaalida oo gabdhaha oo dhibaatadaas ay soo gaartay waxa inii sheegaynaa walaalayaal ilaahay arrintaas ugu dhawaada dhibaatada
dhibaatadaas hadday inku dhacdayno maskaxdiina ha sii siininina ha u murgoonina mida ilaahay ugu dhawaatiin ha ahaato ilaahayna waxaa ka magan gashiin sharta bini'aadanka way ka daran tahay shar walbo sharta insiga waa shar xun ilaahay ka magan gala ilaahayna ugu dhawaada weligiina nin hoos madaxiina ha u geyninin ama naag xumaan inku samaysay arrin inku dhacdayno weligiina ha isku liidinina waxaa laga yaabaa tan inuu imtixaan ilaahay inku imtixaanayo inay tahay baa laga yaabaa marka ilaahay caza wajalla u dhawaada dambi dhaafna weydiista waxaa laga yaabaa mid dembiga geysatay iyo midaan geysanba inaad iskugu jirtiin in mid masawir lagu xaday iyo mid ogeedba inaad iskugu jirtiin wax walbaba ha ahaatee qaladka haddaabad gashayba walaashaye qaladkaagaas maaragtay ka toobadkeen waxaan la hadlayaa oo hadda farta ku fiiqaya midka sameeyey iyo midda samaysay midda fadeexadan banaankan keentay uma qalantid in aabba loo noqdo ama hooyo loo noqdo umana qalantid ina walaashiisa la noqdo umana qalantid in xaas loo noqdo umana qalantid inuu ilmay aabba ku yiraahdo ama hooyo ku tiraahdo waayo waxaad fadeexadeeda banaanka keentay gabar aabba dhalay gabar hooyo dhashay gabar walaalo dhashay gabar ilmo dhali doonta gabar mustaqbal sugi doonta ama mid mustaqbal la oo hooyo la dhahay ba fadeexadeeda banaanka keentay ilaahay caza wajallahana wuu kaa abaalmarin doonaa taas maalinta yoomal qiyaamana meel xun baa laguu soo toojin doonaa intaad maanta nooshahay waxaad qalad gashay ka toobadkeen walaalkay haddaad caqli leedahay ama walaashay haddaad caqli leedahay maantay ka toobadkeen maantaad nooshahay wallahi hadduu ilaahay ku qabto in allaha shadiid alciqaab yani ciqaabta ilaahay maalintuu ku qabto saa'id bay u daran tahay intaa aakhire lagu waafajin ilaahay uga toobadkeen baan ku dhihi lahaa anigu xumaanta walaalaheena muslimiinta aad sii fidinaysidno iska dhaaf baan ku dhihi lahaa daawadayaasha waaweyn oo daawadayaasha dhan oo na daawanayana oo arrinteena messagekan maqlaaya waan inbaryaynaa maanta wax ka qabta haddiina maanta wax ka qaban dooninin biri ininka inku dhici doontaa ama walaashaabay ku dhicin ama adin naftaaday kugu dhicin ama gabaraad dhashay ku dhicin arrintan maanta hala joojiyo stoob ha lagu dhejiyo waxaan socdo ha nalaga joojiyo gabdhahan la ceebeynaya ha nalaga joojiyo maswiraantan baaso qaawanaashaha indheheenu ku dhacayaan ha nalaga joojiyo gabdhaha muslimaadta oo soomaalidana waxaan kula talinayaa inay isdhowraan inay isxifdiyaan inay cadow waayo dadku ceebta yar ay kaa ogaadaan bay jecel yihiin inay walaalaha dadka kale sii ogeysiiyaan inay isxifdiyaan ay ka digtoonaadaan dhibaatadan ku dhacaysa inay ka digtoonaadaan kay la saaxiibayaan iyo kay wax la wadaagayaan iyo kay wax u sheeganayaanba inay ka digtoonaadaan ceeb saan u weyn hooyo gabadhaas hooyadii dhashay maanta qalbiga wuu jabay marka videogaas aragtay ka warra hooyadii maanta ayadoo video anoo qaawan ee arki lahayd ka warra dhibaatada soo gaari lahayd dhaawac jirkeeda gaari lahaa ka warra ilin ay oyso bay u waalan laheedaan ka baqayaa hooyada gabadhaasna waa hooyadeedna waa hooyadee camal dhibkaasaa soo gaaraya ayadana maanta ito dhibkaasaa haysta famil dhan baa la gediyo madaxiisa la rogay markii gabadhaas la qaawiyo maanta ayadoo qaawan banaanka loo soo saaray wax kaloo aan idhahaya ma kasaayi dadka daawanayo arrintan maaragta wax ka qabta videogan sii gudbin lahaydeena midaa ininku samayn lahaydeena dadka waxyaabahan soo saaraya joojin lahaydeena wacdin lahaydeena wax u sheegi lahaydeena wuxuun sameeya maanta waxbaad samayn kartaa bal maanta wax samee oo arrintan wax ka qabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu